maxay tahay sababta loo xiray habeenka magaalada Baydhabo qaarkood oo booqday furimaha dagaalka ee duleedka magaaladaasi soo dhawaada saxbeel wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan ku eegi doonaa wararka iyo xogaha ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waliba xarunta ku meel gaarka ah ee maamulkaas ayaa ku soo waramaya in daqiiqada ka hor xabsiga loo taxaabay dhowr habeen oo la tilmaamay in maalinimadii shalay ilaa saacadihii la soo dhaafayba ay booqdeen furimaha dagaalka ee ay ku sugan yihiin ciidamada taabacsan madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo xogta iyo wararka aan ka helayno halkaas ayaa ku soo waramaya in ciidamada ammaanka ee ka amar qaata kuwa aadamadoobe ay xabsiga u taxaabeen habeenkan oo aanan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambaysan laakiin ujeedka ugu weyn ee loo maleynayo in loo xiray ay tahay in ay tageen ciidamadan duleedka magaalada Baydhabo ku sugan ee Laftagareen taageersan waxa sidoo kale xogtu ay sheegaysaa in sidoo kale ciidamadu ay ku raad joogaan haween kale oo la tilmaamay inay halkaas tageen laakiin markii ay gudaha Baydhabo ku soo laabteen isku dayeen inay guud ahaanba magaalada ka baxaan oo ay caruurtooda halkaas ka baxsadaan lama oga ilaa hadda sababta rasmiga ah laakiin waxa la werinayaa ilo dadka deegaanka ahna ay noo xaqiijiyeen in kaliya ay booqdeen dadkooda oo ku sugan duleedka magaaladaasi oo gudaha magaalada ka baxay iyadoo halkaas dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka bilaabeen ciidamada kuwa Laftagareen taageersan ee duleedka magaaladaasi ku sugan saacadihii la soo dhaafay ayuu baraha bulshada si weyn u qabsaday sawir ka yimid duleedka magaaladaasi oo ah haween la sawiran ciidamo kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed ah oo taageersan madaxweynihii awoodda looga saaray magaalada Baydhabo Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen wixii ka soo kordhay saaxiibayaal halkan ayaad kala socon doontaan